kusoo dhawaada carwada lixaad rugta ganacsiga Somaliland kowda bisha koowaad sanadka cusub ee 2014 ay noqonayso rugta ganacsiga inuu asteysay noqoto sanadkii ganacsiga maadaama uu xaflad ugu weynay taariikhda ku jirta hay'adda gudoomiyaha iyo hogaamiyaha joogan mas'uuliyiinta rugta ganacsiga iyo xukuumadda Somaliland qayb weyn ama dadaal weyn oo gashay rugta ganacsiga oo hawshan oo dhan ay ku dhacayso in ganacsatada xitaa loo xaqsooray taas oo koontar la sameeyo mid walba bee u yimaado xogayaha guud rugta ganacsiga Somaliland ayaa markaas u yeedhi doona Maxamed Ismaaciil Cilmi iyo rabaa ka taabto rugta ganacsiga iyo waxay qabato rugta ganacsiga warshadaha iyo beeruhu Somaliland waxay ugu horeyn ku soo dhaweynaysaa carwada quruxda badan ee ka tarjumaysa ganacsiga Somaliland hadda halku marayo hadday noqoto wax soo saarka hadday noqoto adeegyada kala duwan iyo hadday noqoto ganacsiga gudaha soo intaa kadib waxay ka taabanayaa taariikhda la aasaasay rugta ganacsiga waxaa la aasaasay 25 Oktoobar 1993 waxaana lagu aasaasay sharciga nambarkiisu yahay 35 waxay ku dhisan tahay sharciga guud ee public loogaasi wuxuu cadaynayaa in ay tahay hay'ad madax bannaan sharciyeysan ay leeyihiin ganacsatada ka duwanashan oo dhan qaab dhismeedkeedu waxa weeyaan golo guud guddiga maamulka guddiga fulinta guddoomiye iyo laba guddoomiye ku-xigeen iyo xooghaye ujeedooyinka loo dhisay rugta ganacsiga waxa weeyaan wakiilka noqoshada ganacsatada kala duwan iyadoo danahooda ilaalinaysa u dhaxaynta dowladda iyo hantiilayda gaar ahaaneed iyo u kala gudbinta labada dhinac talooyinka iyo wada tashiga iyo saamaynta shuruucda cusub ee saameeya dhaqaalaha waddanka qabanqaabinta carwooyinka gudaha iyo kuwa dibadda raadinta suuqyada dibadda intaasina waxa weeyaan ujeedooyinka loo aasaasay rugta ganacsiga howlgalkay rugta ganacsigu qabato waxaa ka mid ah saamaynta shahaadooyinka asalka certificate of origin xaqiijinta waraaqaha rasmiga ah rumaynta qaansheega ganacsi iyo diiwaangelinta ganacsatada intaa kadib waxaan u mahadnaqayaa martigeliyey carwada quruxda badan iyo dhammaan bulshada ka soo qayb gashay carwadan jamhuuriyadda Somaliland golaha wasiirada golayaasha qaranka ganacsatada waaweyn mutasharafka kale ee qiimaha iyo qaayaha badan ee halkan fadhida rugta ganacsiga oo aan mar laba iyada u dirayo u mahadnaqayo maadaama ay inoo diyaariyeen carwadan aad iyo aad kala quruxda badan leh ee aad moodo carwooyinkii caalamka si hore loo sheegay waxaa runtii wax lagu farxaa ah maanta waa maalin weyn oo aad iyo aad qiimo badan u leh jamhuuriyadda Somaliland maadaama ay carwadii lixaad tahay oo aad moodo carwooyinkii caalamka la mid ah in halkan laga sameeyey waxaan u mahadnaqaynaa ciddii ku tacabtay ee suurto gelisay arrintan carwadan sida xeerka ay ku aasaasan tahay rugta ganacsiga Somaliland ee dhaqangalka ah ee golayaasha qaranku ay baaskareeyeen 1993 jidaynayo waxaa mas-uuliyaddiisa iyo maamulkiisa la iskala rugta ganacsiga waajibna ay tahay sanadkiiba mar inay qabato sidaa awgeed naga u mahadnaqaynaa cid kasta oo gacan ugle ka qaadatay carwadan fikirkeeda iyo fulinteedaba waxaa iskale rugta ganacsiga Somaliland waxaa si gaar ahaan ugu mahadnaqayaa walaalaheenna Turkiga ah ee dhacdadan nagala qayb qaadanaya ee soo camiray aad baan ugu mahadnaqaya iyagana waxaa kaloo iyagana xusaya walaalaheenna Yemen ka yimid iyaguna dhacdadan ka qayb qaadanaya
qolada runtii kastoo dhibaato badan oo kulmay jabuuti ka timay saaka tiri ina soo gaadhay ee u soo jirtay dhacdada yimaadaan iyagana aad baan ugu hadlay waxaan ku gabagabeynayaa kelmadaydii dhacdadan carwada waxa looga jeedo xogayaha xusay laakiin saddex kelmadood koobaan ku soo ururiyo dhacdadani somalilan waa u magac ganacsatada reer somalilanna waa u qafaciyo muuqaal bulshaweynta reer somalilanna waa u magaalay siyaasad waxaa kaloo ay mahadiya oo dhammaanteedna farxada in aan ku soo qeyb galno dhacdadan quruxda badan leh ku bandhigayno amaan caalam ku tusayno halka maanta nabadeenna iyo horumarkeenu uu marayo marka wada waxaan mahadnaqayaa runta ganacsiga oo ku hawlanay ilaha dambeeyey sidii u dhici lahayd maarta carwadan sida fiican loo soo agaasimay anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca xubnaha rugta ganacsiga ee somalilan waxaan ganacsatada somalilan la socodsiinayaa inay maanta laga bilaabo ay bilaabantay diyaarintii iyo soo saaridii hagihii ganacsiga ee somalilan oo shaqaalo ka socda rugta ganacsigu ay idinku iman doonaan rugihiina iyo meheradiina iyo xafiisyadiina sidaa awadeed shaqaalaha hawshooda ha loo fududeeyo qofkii danaynaya inuu ka qayb qaato na waa soo dhaweynaynaa sidoo kale waxaanu la socodsiinaynaa buuggu ganacsatada keliya uma xidhna hay-adaha dowladda wasaaradaha hay-adaha madaxa bannaan hay-adaha caalamiga iyo hay-adaha maxalliga ahba iyaguna wixii warbixina ee waxqabadkooda ah ee howlaha ay bulshadan u hayaan way gashan karaan waa ku soo dhaweynaynaa arrintaan idinku yeedhnay inaanu maadaama ay jiraan dadkeenu ay maadaama shaqo la-aantu ay badan tahay in dad si brifada iskugu dayaya inay iyaguna maaragtay si oo ujeedo arsaaq raadina inay wax u eeg ganacsatada iyo dadka loola tago kan waa ka rasmiga ah ee dowladda somalilan leedahay rugta ganacsiguna mas-uul ka tahay rugta ganacsiga somalilan maanta ay taariikhdu tahay 20kii bishii 8aad 2015 waxay si rasmi ah u baahinaysaa in carwo sanadeedkii somalilan ee sanadkii mar dhici jirtay ay sanadkan dhici doonto haddii alla yidhaahdo 31 bisha tobnaad ilaa 7 bisha 11aad sidaa awadeed rugta ganacsigu waxay ugu baaqaysaa ganacsatada reer somalilan ee kuwa caalamiga hay-adaha dawliga injineeriyada iyo hay-adaha caalamiga ahba iyo guud ahaan daneeyayaasha carwadaas inay ka soo qayb galaan waxaa idinku iman doona idinla soo xidhiiri doona shirkadda AOA Event oo ah shirkad somalilandara oo ku takhasustay qabanqaabada iyo hirgelinta dhacdooyinka noocaasiya taasoo rugta ganacsigu ay u gumatay inay hawshaas qabanqaabiso shaqaale ka socda iyo shaqaale ka socda rugta ganacsiga isku dhafan sidaa awadeed ciddii danaynaysa waxaa laga codsanayaa inay soo dhaweyso anigoo ku hadlaya afka bahweynka ganacsatada reer somalilan ama hantiirayda gaar ahaan reer somalilan waxaa noo farxada sida quruxda badan ee uga soo jawaabteen noo karaamayseen dacwaddaanu idin si gaar ahaaneed waxaan u mahadnaqaynaa aanu soo dhaweynaynaa wasiirka wasaaradda ganacsiga somalilan mudane dr muuse qaasim waxaa kaloo soo dhaweynaynaa kasoo qaybgalkiisuna ay muhiim noo tahay uqa caasimadda somalilan mudane cabdiraxmaan walaalayaal maanta waxaa carwadan carwooyinkii hore kaga gedisan tahay oo naga soo qayb galay marti sharaf inooga yimi dalalka aynu jaar ka nahay waxaynala joogaa wafdi ka socda rugta ganacsiga puntland oo hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga
ganacsiga Puntland iyo ganacsatada waaweynay si ay inoola eegaan oo muxuu ahaa ay u arkaan horumarkeenu gaadhnay iyo muxuu ahaa dalkeenu maray caqooyinka qabsanay muxuu ahaa waxaa kaloo iyadana runtii doorka ku soo biiray lix sharikadood reer Soomaaliya sida Dahabshiil, Telesom, Somcable, SBI, Allahumma salli ala Muhammad, Takaful, muxuu ahaa waxaa ku soo biiray iyadana muxuu ahaa iyo baanka muxuu ahaa kaag isaguna dalkeena branch ku leh iyo muxuu ahaa shirkad kale oo reer Yamaneed ayaa iyadana ku soo biiray sanadkan inay muxuu ahaa sponsoriska carwadana ay ka mid noqdaan runtii aad baan u dhiirigelinayaa dadkeenu ganacsigu waxa weeye dhaqaalihii oo dhammi wuxuu ku tiirsan yahay ganacsiga ugu yaraan 9% private sector-ka innaga hantideedii haya markaa runtii inaynu hore u marino ganacsiga waa fursaddeena nololeed ee ku jirta ubadkeenna wax baranaya xataa shaqooyinka halkay keenayaan waa private sector oo 90% gacanta waxay ku jirtaa dhaqaaluhu private sector marka inaynu barobadkarino inaynu ka shaqayno waa shaqadayadoo markaa runtii aad baan u soo dhawaynaynaa waanaan ka shaqaynaynaa waana mahadsantihiin dadkiina ka soo qaybgalay maalmahan ba halka shir baan u fadhinay waxay ganacsatadu kaga tashanayeen culays kaga yimi badeecadihii dekada ay kala soo baxayeen dekadaha culays soo saaray maamulka dekadu oo ay ganacsatadu u arkeen inaanay badeecadii suuqii ka tartami karahayn culayskaas hadduu sidaa ku hirgalo halkan xafiiska ganacsatadu yimaadeen cabashadaas ay soo bandhigeen maamulkoodii markaanu nahay aan isla eegnay arrintii culayskaasi inuu badan yahay oo loo baahan yahay inay ganacsatada iyo dawladdu iska arkaan oo dawladdu ay dhageysato cabashada ganacsatadeed madaxweynaha iyaga aan dooranay ee codka iyaga iyo cuudka iyaga meesha ku yimid waxaan u jeedinay madaxweyne raggaagii baanu nahay waxaan doonaynaa in loo dhaganugulaado in la dhageysto marka waxaan codsanaynaa oo dawladda ka codsanaynaa maadaama waqti socdo inaan waqtiga la sii fogeynin in arrinta xal laga helo laga gaadho la wada hadlo ganacsadii maanta culayskaa soo kordhay ee xagga ka yimid dekadda inuu mideeyey shir baa halkan ka dhacay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ganacsatada reer Soomaaliland ugu yeeray wada tashi ku saabsan sidii loo qiimo gelin lahaa ama anaahda loo isticmaali lahaa cumlada ama local currency Soomaaliland shilling oo aynu garanayno qiimaha iyo makaanada uu ku leeyahay qarnimada Soomaaliland oo astaantii qaranka ah halbowlihii jiritaanka Soomaalilandna soo jeedintii madaxweynaha ay ahayd shacab iyo xukuumadba in la isticmaalo Soomaaliland shilling halkan imika ka dhiganay lacagta aynu isticmaalo dollar Soomaaliland shilling la isticmaalo iyadoo wax lagu kala iibsado marka uu nahay ganacsatada Soomaaliland waanu la qaadanay madaxweynaha waana ku dhaqmaynaa soo jeedinta iyo talada madaxweynaha oo isticmaalaynaa waxna waa ku iibinaynaa sidoo kale shacabka Soomaaliland iyaguna in lacagta la aamino way ganacsaduhu lacagtu marka la aamino ay guryaha iyo jeebabka ay ku dhaxdo ay qaybsato qof waliba in haysto qiimo yeelanaysa marka qiimo yeelato ay fadhiisato meel ganacsadaha wax ku qasbaya inuu bedelo oo dollar raadiya ma jirto iyadoo kaydsanayadu meel dhiganaya marka sidaa awadeed anagu waajibkayaga intaanu lahayn madaxweynuhu soo jeediyey si niyad samiya iyo la furaan waan ku qaadanaynaa waa ku dhaqmaynaa waa hirgelinaa dawladda waa kala shaqeynaa arrinta sidii ballanku ahaa markii aan Istanbul joogay warkii aan soo diray ee ahaa markaan imaadaalan faahfaahin doona shirkii aan ka qayb galay aan u tagay meesha iyo natiijadiisii baan rabaa inaan ka hadlo iyo qodobo kale oo runtii ku saabsan hawshii aan hayay iyo la shaqayntii madaxweynaha ugu horreyn haddii aan ka warbixiyo shirkii Istanbul aan u tagnay dhowr iyo 11 xubnood baan ahayn oo anigu aan ahaa gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga kuna hogaaminayay wafdiga shirkaa waxaa qabanqaabiyey hay-ad ganacsiga iyo cilaaqaadka caamka u qaabilsan dowladda Turkiga oo DEC la yiraahdo marka la soo gaabiyo waxaan ila soo xiriireen rugta ganacsiga ee Soomaaliland rugta ganacsiga ee Soomaalilandna waxay ka dalbadeen
tiro ka soo qayb gelaysa shirkaas arrimaha lagaga hadlayaana wuxuu noqonayaa arrimo ganacsi iyo shirkadaha dowladda turkiga oo raba inay maal gashadaan kuwaas oo runtii u diyaara inay investment xoog leh bixiyaan taasna ay tahay waajib inay ka soo qayb galaan ganacsatada somalilan si ay danahooda iyagoo magaca dalkooda iyo dadkoodaba ku hadlaya kuna sharfaya kuna sharfan inay ku tagaan meesha kagana qayb galaan ayaanu ku tagnay guddidii qabanqaabada markii aanu meeshii gaadhnay oo halkanna qusulka joogaa nagu siiyey runtii fiisada oo aanu sidaa ku tagnay markii aanu meeshii tagnay markii aanu la kulannay qabanqaabadii waxaanu weydiisanay in ay noo keenaan ajandaha shirka markii ay ajandihii shirka noo keeneen iyadoo ay halkaa goobjoog ka ahaayeen soomaaliya iyo somalilan iyagu siday doonaan isu kala gurguraan annaga soomaaliya noo ahaayeen annaguna somalilan baanu ahayn iyo qolo ganacsato ah oo ka socotay dowladda jabuuti markay ajandihii noo dhiibeen waxaanu ka akhrinay meeshii inaan somalilan haba yaraatee ka muuqan somalilan haba yaraatee in ajandaha ka muuqan waxna ku lahayn arrintu khusaysa un soomaaliya iyo meesha la yidhaahdo dowladda turkiga halkaa markay marayso oo shirkii weynaa markaa 10kii subaxnimay ahayd markaanu qabanqaabada isu nimi oo shirkii weynana u dhici lahaa oo bilaabi lahaa 3dii galabnimo ayaanu halkaa markay marayso ka hadalay aniga iyo raggii la socdayba waanaanu ka asxaabanay waanaanu sheegnay in annaga halkan waxba noo ool waanaanu ka baxnay sidaasaanaan kaga qayb gelin shirkii oo bilaabmay gelinkii dambe annaguna gelinkii horeanu ka baxnay goobtii runtii tv-ga kalesan baan kala kulmanay aniga iyo xubno kaleba shir jaraa'id baanu ku qabanno waan ka warrannay saxaafaddana waan la soo hadlay wixii dhacayna waan ka soo sheegay dabeedna sidaasaanu shirkii kaga gaabsannay danaha yaga ayaanu markaa ku foofnay nin caafimaad u taga oo dhakhtar soo doonto iyo nin ganacsigiisa kala gala iyo nin shirkado ula ballansana u tagaba raggii intaydii soo noqotay haddaan idinka magacaabo wax oo ka xaqiijin kartaan oo wareysan kartaan oo weydiin kartaan waxaa ka mid ahaa injineer cabdi cali barkhad oo ka socday shirkadda kaa kiise shukri oo ka socday shirkadda la yidhaahdo muxuu ahaayeen daryeel waxaa ku jiray nin buux la yidhaahdo oo reer boorama ah oo isaguna ka socday shirkadda raashinka keentay sabawanaag nin muuse toob la yidhahdo isaguna raggan raashinka keena ah intayadaasi intii haddeerta soo noqotay baanay iyo rag danahooda iminka u maqan oo howlahoodii shirkadaha la balansaayeen la jooga intayadaasiba goobjoog baanu ka ahayn waanaanu ka wada baxnay waanaanu wada qabanay shirka markii halkaanu joognay waanaanu isku raacsanayn arrintaas sidaasaanu kaga soo baxnay nasiib darro halkan waxaan ugu yimi in warbaahinta qaar ay qoreen inaan shirkaa ka qayb galay sawiro shir hore oo ka dhacay dowladda jabuuti oo runtii sanad guuradii 100aad inay 2014 ahayd baan filayaa bilowgiisii ama 13 dabiiqadiisii sanad guuradii 100aad ee rugtooda ganacsigu ay isku casubeen caalamka oo dhan ku casubeen annagana nagu casubeen oo la ka qayb galay sawirana way soo qaateen taas ayaa ka xoog roonaatay warbixintayadii iyo hawshiiba